السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waxaa idinku soo gudbinaynaa dhacdo ka dhacday wadanka Masar. wiil dhalinyaro ah iyo aabihiisoo nin da' ayaa waxay wada degnaayeen guri. hooyadiisana waxay dhimatay wiilkaas waqti aad u yaraa. wiilkii wuxuu gaaray 25 sano. intaasoo dhan aabihii ayaa ku soo dadaalayay, soo barbaariyay, soo kobciyay, aqoon soo baray. laakiin wiilkaas markuu weynaaday wuxuu la soo baxay wiji shaydaannimo ah oo dilaanimo ah oo dhibaato weyn ku ah waalidka ayuu la soo baxay. runtii waxaa dhacday odayga markuu gaaray ilaa iyo 55 iyo 60 inta u dhaxaysa markuu gaaray ayuu wuxuu dhahay markuu isdhahay wiilkaagu wuu kuu barbaaray, markaan ay haddaad doontid nolol cusub dhisan kartaa. runtii wiilkiis ayuu la tashaday, wuxuu dhahay aabbo waxaan rabaa inaan nolol cusub dhisto, waqti badan ayaa iga soo lumay, laakiin sida ay tahay adigaan kugu soo dadaalay, waxaan doonayaa inaan qof cusub guursado si waqtigayga intii dhiman aan noolaanayo ma ogi inaan ka sii faa'iideysto ayaan doonayaa. marka wiilka hadalka uma xumeyn aabihiis, wuxuu dhahay waayo aabbo intaan aad igu soo dadaalaysay waqti badan igu soo bixisay, marka anigana waxaan jeclaystay inaan ku fasaxo ilaan aabbo fiican ayaa tahay, waqti badan aad igu soo bixiso waa mahadsan tahay, soo guurso dhahay. marka aabihii wuu ku farxay wiilkiisa markuu go'aanka siiyey. kadib waxaa dhacday wiilkii aabihii wuu baxay, qoftay balansanaayeen guriga ku balansanaayeen ayuu soo guursaday, guriga ayuu keenay. marka guriga markuu keenay ilaa iyo 3 bilood 4 bilood waxa lagu noolaa farxad iyo reereen. marka wiilkii wuxuu bilaabay in hooyadii cusbeeda eedadiisa ahayd inuu la xifaaltamo oo isku dayay inuu amro sida asiga inuu qabo oo kale ama adiga gabar ka yar oo kale inuu amro isku dayay. marka iyadu waxay dhahday aabihiis ay kaga dacwatay, waxay dhahday wiilkaaga sidii markaan koow noloshiina ku soo biirayo kala ma ahan, wuxuu ii bilaabay inuu amro, wuxuu ii bilaabay inuu aflagaadeeyo, hadallo kulul igula hadlo. marka waxaan rabaa in wiilkaaga la kala fogeysid, aan si gaar ah ii dejisid, aad wiilkaagana si gaar ah u dego. marka waxay dhahday guriga inuu wiilkaaga ka baxo ama inaan aniga ka baxo dibadda ii dejisid, wax ka dhaxeeya male. aabbahan wuxuu ahaa nin da' ah, noloshiisana in badan ayuu soo lumiyey. markaan wuxuu ku fikiray inuu wiilka iyo xaaskiisa cusub inuu hal meel uusan dejinin oo kala fogeeyo. marka wiilka wuxuu qalad u fahmay in eedidan darteed aabbihii uu kaga fogaanayo oo asiga uu ka jeclaysanayo naagtan noloshiisa hadda la ku soo biirtay, laakiin asiga iyo aabihiisna ay soo wada noolaayeen muddo 25 sano ah. runtii asiga fikirkaas inuu qaato ma ahan, waayo cilada inuu asiga xaggiisa ka timaaday asiga kama dhaadhacsana marbo wuu isla saxnaa. marka waxaa dhacday wiilkii aabihiisa wuxuu go'aan ku gaaray inuu hooyadii cusbeed uu ka fogeeyo oo meel gaara dejiyo, wiilkiisna meel gaara uu degsado. marka waxaa dhacday aabihii wuxuu soo kireeyay guri villa ah, wuxuu go'aan ku gaaray wiilka inuu dejiyo, asigana iyo xaaskiisna ay gurigan cusub oo gurigii hore ay degnaadaan. laakiin wiilku uu ku diiday, wuxuu dhahay gurigan xusuusta hooyadeeda ayaa ku jirta, ma ka guurayo islaantaada ama xaaskaaga, adiga haddaad dartid la guur. wiilkii meeshaas waxa uu ku bilaabay inuu uqdad u qaado aabihiisa, uu u arko in aabihiis uu ka doortay naagtan cusub. marka waxaa dhacday aabihii wuxuu dhahay haddii aabba wiilkaaga uu go'aansado inuu gurigan ku noolaado, sagada adig iyo xaaskaaga guri cusub dega. inkastoo aabbaha uu jeclaa wiilkiisa inuu la noolaado, laakiin cilad ayaa soo dhexgashay, sidaas aawadeed ayaa lagu kala fogaaday. marka waxaa dhacday gurigii ayuu u guuray aabihii. gurigii markuu degay wiilkii wuxuu dareemay cidlo, waayo aabihiisa 25 sano uu la noolaa ayaa ka fogaaday. marka wuxuu dhahay aabahayga inuu iga fogaado dhibaato far badan ayaan dareemayaa. marka wuxuu go'aan ku gaaray fikrad aad iyo aad u khaldan ayuu qaatay. fikradaasoo ah hooyadii ama naagtii dartiisa aabihiis ugu fogaaday iyo macal aabihiisaba inuu hawada ka saaro ama uu dilo. waayo wuxuu isdhahay aabbahan waa nin xun, waayo xaaskan cusub ayuu kaa doortay, naagtanna waxay go'aan ku sabab u noqotay aabbahaaga iyo adiga inaad ku kala fogaataan. marka wuxuu ahaa go'aan aad u khaldan. marka waxaa dhacday go'aankiisa
aad iyo aad u qaldanaa laakiin aabihiisa mar walba aabaha kama shakisanan wiilkiisa wuxuuna ku fikiraya mar walba inuu yahay wiilkiisa mid baari ah oo wanaagsan oo jecel aabihiisa oo wanaagiisana jecel marka waxaa dhacday in aabihii uu go'aankii wiilka uu qaatay uusan dib u raacin uu marna ka shakin wiilkiisa wiilka wuxuu jaanis ku helay in uu aabihiisa cuno oo one time ama safari ah cunada Soomaalida ay aad u taqaano maqaaxida laga soo safari gareysanayo oo meesh lagu cuneen ayuu jaanis ku helay aabii u dirsaday jaanis uu aad ugu faraxsanaa buu ahaa marka waxaa dhacday cunadii sun wuxuu ugu soo daray oo aan isla markii qofka aan dhibaato u geysanin laakiin in yar u daciifinaysa ugu dambeyn wadnaha istaajinaysa ayuu soo iibiyay cunadii ayuu si wanaagsan ugu daray kadib cunadii ayuu aabii u keenay inkastoo aysan aabihiisa shaki ku jirin waxaa dhacday aabihii iyo xaaskiisa cunadii ayuu cuneen way ka dhargeen bas in muddo kadib maalmo kadib aabihii wuxuu isku arkay wadna garaac hooyadii sidoo kale wadna garaac bay isku aragtay dhakhtar bay aadeen waxay dhaheen xaaskaygana wadnaha ayaa garaacmaya anigana wadnaha ay garaacmaya maxaa jira markii baaritaan lagu sameeyey waxaa dhacday in la dhahay waa sumaysantihiin dad sun oo jirkooda ku jirta ay tihiin marka waxaad u baahan tihiin isla markii in suntan difaac badan ama dagaalan badan lala galo wiilkan wuxuu iska dhigay nin aabihii iyo hooyadii aan aad iyo aad oo ugu naxsan xaaladda ay ku sugan yihiin uu is oohiyey uu is waalay markaas aabihiina marna kama shakin wiilkiis inuu sumeeyey marka wuxuu dhahay suntan goormee adiga aad cunteen halkee idinka soo gaartay qaabkee idinku soo gaartay ayaa la dhahay waxay anaga meel sun naga soo gaartayna ma naqaano gurigan aniga iyo xaaskayga kaliya degan weligeena maxaa la jira qoys kale ama dhibaato kale ama cid aan dhibaatayna ma jirto cid aan oo dib u geysana ma jirto suntan meel naga soo gaartay ma garanayno laakiin waxaad gudaashay inaad nabi oo badbaadisaan oo dadaashaan aabii hooyadii dhakhtarka la dhigay wiilkina wuxuu iska dhigay nin aad iyo aad u murugaysan marka waxaa dhacday suntii inkastoo ay jirkooda saytahay ugu faaftay waxaa dhacday maalmo inay sii noolaadaan lala tacaalo ugu dambeyn aabii iyo hooyadii way dhinteen laakiin dhakhaatiirta waxay u gudbiyeen kiiska CID-da dadkan in la sumeeyey oo sun cuneen ayaa loo gudbiyey marka waxaa dhacday CID-dii baaritaan far badan ay sameeyeen say u wadeen arrintii baaritaanka waxaa la ogaaday eedada iyo wiilka inay isku dhacsanaayeen laakiin shaki oo maanta lagu qaabil karo ama ninka lagu soo xiri karo ma jirin marka waxaa dhacday in wiilkii la baaray si fiican loo baaray dambigii lagu waayey marka dhakhaatiirta loo laabtay waxaa la dhahay suntan dadkan goormee ayay jirkooda gashay oo imisa maalmood imisa isbuucii jirkooda ku jirtay dhakhaatiirta markay baaritaan badan sameeyeen waxay soo saareen waqtiga saxda ah ee sunta ay cuneen gurigooda ay dib loogu laabtay inta qof ee maalintaas timaatay ayaa baaritaan lagu sameeyay kaamirada inta ay duubtay waxaa la arkay wiilkii oo kartoon cuna oo one time wada oo gurigiisii galay ayaa la arkay shakigii ayaa ku sii weynaaday wiilkii waxaa askarta ay ku tashteen ninkan in ay baaritaan culus ku sameeyaan iskana dhigaan in runta soo ogaadeen wax walba ay ku fadhiyaan inuu dambigiisa qirta ay tahay ninkan asigoon wax ogeyn ayaa la soo qabtay waa laga cabsiisiyey waa laga neexiyey waxaana loo sheegay in dambiga asiga uu ku cad yahay oo asigana uu arintii uu si sax asiga u sameeyey waalidiintiisana asiga sameeyey inkastoo in badan uu ka meermeereystay kadib wuxuu qirtay dambigiisa sida walba uu sameeyey wuxuu dhahay eedadeeda aniga waa isku dhacsaneen aabahaygana iyada ayuu la soo saftay sida aawadeed aniga uqdada ay gashay waxaan go'aan ku gaaray labadooda inaan dunida ka khariyo oo dunida aan dhaafiyo sidaas aawadeed marka waxaan go'aan ku gaaray inaan sameeyo labadoodana sidaas ayaan ku sameeyey dambigaasna aniga ayaa galay waxayna iga keentay caro marka arintaas waxay ahayd arin aad u foolxun oo ka dhacday wadankaas marka waxaa idin leeyahay waalid iyo ubadka waxaan ka rajaynaya inay isfahmaan oo problem aysan ka dhex dhicin marka qisadan aniga markaan akhristay waxaan go'aan gaaray inaan idin soo gudbiyo waxaan kaa codsanaynaa inaad fikradaana soo gudbisid sida ay kula tahay wassalaamu calaykum